xaflad si weyn loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay dugsiga farsamada gacanta ee Yeb taasoo lagu maamuusay arday ka qalin jabisay barnaamijyo xirfadeed oo muhiim u ah nolosha shaqo iyo horumarka bulshada. munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin wakiilo laga soo kala doortay deegaanka Dadaab, Abaqayle iyo deegaano kale iyo sidoo kale wakiilo ka socday hay'adaha taageerayay waxbarashadan farsamo. intii ay ku jireen waxbarashada ardayda ayaa waxa ay barteen xirfado kala duwan oo ay ka mid yihiin dhartolida, cilaanka, elektrooniga iyo kuwa kale. qaar ka mid ah ardaydii qalin jabisay maanta ayaa Radio Horn Africa uga warbixiyay dareenkooda. ما شاء الله أنا هنا بخصوص الروان وقسمة كرا حري كرا دمي كرا مارتاي شدن كرا حالة بدل فإذا يعني كلام وكا هذا هو مالين هيدا سيدرو هيدا جورسي هيدا مارتاي هيدا مالين توبركاس وحنا إن عن أمها العلينا هيدا نجعل سيدا European Union DRC يرد waxaa kaloo maadis kale macallimiinta soo baray waxaan baranaynaa muddo sanad waa soo qalin jabinay hadda ayaa ka soo baxnay tababarkii certificate ardayda ayaa sidoo kale u diray baaq isla hay'adahan taabageliyay waxbarashadan farsamada gacanta iyagoo sheegay ama ka dalbaday hay'adahaasi inay shaqo abuurna u sameeyaan. waxaana ka codsanayaa hay'adda maadaama ay na bartay wax oon horumar gaarnay waxaan rabnaa haddana inay na siiso meel aan wax ku baranno meel aan wax ku qabsanno waxaan rabnaa wax aan meel ma haysanno aan ku shaqaysanno ma haysanno magaalada Dadaabna waxay ku xuntahay markay la helo guryo oo dawladda ay keento oo la rabo in lagu ganacdo wax lagu barto ama wax lagu qabsado anagana ma siinaa way noo diidayaan. marka waxaan ka codsanaynaa meel wax aan ku baranno inayna la siiyo meel aan wax ku qabsanno wixii aad baratay faa'iidadeedii waxa waay inaan wax qabato horumar ay gaarto. marka wixii aan soo bartay waxaan ka codsanayaa hay'adii maanta garabka igu siisay inaan soo qalin jabiyo inay haddana i siiso meel aan ku ganacsado. mas'uuliyiintii ka qayb gashay kulankaasi ama xafladaasi qalin jabinta waxaa ka mid ahaa Maxamed Cabdi Faarax oo ah MCA-ga laga soo doortay Dadaab. isagoo ka hadlayay munaasabadaasi ayaa waxa uu dhinaca kala soo hadal qaaday arrimo ay ka mid yihiin sonkor la sheegay in laga keeno Ifo hase ahaatee ciidanka booliiska ay ka hor istaagaan in la soo geliyo deegaanka Dadaab. Sisi tuko na shida kidogo. Kuna wale wanachukua sukari gunia 2 kutoka Ifo kukuja Dadaab wanasumbuliwa hapa na askari wetu. 2 bags for home consumption, 3 bags, 4 bags. You know, Ifo is located in Dadaab, just 6 kilometers from here. I wish kama wanataka kuzuia sukari, wangezuia ile sukari inatoka kule kutoka Somalia, ambayo inaweza kuja na hata bomu, inaweza kuja na risasi, inaweza kuja na vituko zote. Lakini gunia 2 ndugu yangu, gunia 3 ya sukari ya mtu anabebea harusi yake ama ya familia, hiyo ni kero moja ambayo nimeambiwa leo asubuhi, na naomba OCPD wetu na DCC na security agents at least we are not saying they should not keep vigil, but you know, sukari 2 kutoka Ifo mpaka Dadaab, mtu akuuza sukari ile ya rejareja anaweka robo, anaweka nusu kilo ndio ajimudu kimaisha, lakini utasikia amefungwa, ampeleka sijui mahakamani. Inatokera sana, na tunaomba kama huyo mtu ambaye amebeba hiyo sukari kutoka Ifo, tafadhali sana asisumbuliwe sana.
ni maombi ndio napeleka. MCA laga soo doortay Abaqayle Haajir Daahiye ayaa isna halkaasi ka hadlay isagoo sheegay ama ka codsaday bareer Dhadhaab inay ku garab istaagaan doorashada soo socota oo uu taagan yahay xilka gobernatore ee Gaarisa. meeshaas dawladda ka imaan doonta insha Allah. anigana haddana la joogo waxaan ahay musharax, waxaan geystay application tolkaan u geystay tolka wax alla wuxuu igu taliyo ayaan diyaar u ahay inaan qaato. waxaan hadda bilaabay process aan la hadlayno maaragtay dadka tababi oo ila taagan baan ka bilaabay. Mheshimiwa Shidiye walaalkii asagana telefoon baan u diray dhaarweeto waan kulmaynaa insha Allah. siyaasadana ma u baahna xanaaq wuxuu baahan aayarku maaragtay inaad intaa fiirisaa dhahda intee uu roobka ku daaya, intee xeynta iyo maaragtay xoolaha la geyn karaa, intee biyaha ku dambeyn doonaan, intaas ayaa la doonaya. marka insha Allah haddii la dhoo gabanaa la aadi walaalayaalow siyaasadda walaalayaalow somo walaalayaalow waa idin baryaaya. Haajir Maxamed Daahiye oo 5 sano wasiir soo ahaa, 5 sano advisor ahaa, haddana 5 sano MCA weli cid yar oo maaragtay sareeyay baad ka garanaysaa mar malaynayo adeerkay chairmanka baaki maade haddii raqaasino maaragtay yarba soo lama siin gabaranimada annagu waan u qalmaay walaalayaalow bal gabaranimada annaha lagu dayo soo saas maaha.